السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا قيارته سود هذا ومركل برنامج كله يكيستا تي في مالك واسنين والله طبعاً كجانوري لو ذا كون يلحي لباتنك برنامج كنا المانتا إن شاء الله تعالى وحنكون قاعدة دقي دونا باريتانو وين أو كوب اللوذي هي حوالدها إكويا لا قبل كمينيسوتا سو كله وحن إيجي دونا هي كله أو شيء حكايها dhaqaalaha dalkan Mareykanka Secretary of the Treasury Scott Bessent ayaa isagu warbixin uu bixiyay shir jaraa'id oo uu ku qabtay gobolka Minnesota kaga waramay arrimaha ay hay'adiisu ku foogan tahay oo ay wado hadeer haddii aad nagu cusub tahay subscribe to the channel hadda hore noola joogtay like and share the video waan idinka mahad celinaya aan ku bilaabay waxaa ku bilowday baaritaano xoogan hay'adaha lacagaha kala xawila oo anagu aanu naqaano xawaaladaha sidoo kale waxaa la baarayaa baa la yiri bangiyo ku yaala gobolka Minnesota kuwaas oo iyaga naftooda ay uga shaki qabaan hay'adda dhaqaalaha ee dalkan Mareykanka in ay loo isticmaalay in lagu kala xawilay lacagihii laga dhacay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota sida warka uu u dhigay Scott Bessent ayaa isagu shirka jaraa'id markii uu qabanayay waxa aan aniga ahaanteeda ka soo qaatay 4 qodob oo kulli ku saabsan baaritaanada ay rabaan in ay ku sameeyaan ganacsiyada ku yaala countyga Hennepin County iyo countyga Ramsey County oo midna Hennepin County uu ku yaalo Minneapolis Ramsey County uu ku yaalo St. Paul caasimada oo Soomaalida ay ugu fara badan tahay deganaansho ahaan marka la fiiriyo gobolka Minnesota marka odaga shirkaas jaraa'id uu qabtay wariyaal fara badan ayaa joogay su'aalana waa laga weydiiyay marka waxaan eegi doonaa insha Allah taala waxyaabihii uu sheegay in uu baaritaan ku sameynayo ilaa hadeer wuxuu cadeeyay 4 hay'adood ama 4 xawaalad in ay baaritaan ay ku hayaan 4taas xawaalad ma uusan magac dhabin isaga oo sheegay in investigation uu socdo inta baaritaanka uu socdana uusan ka hordhacaynin laakiin cadeymo iyo warqado iyo dacwado isku soo oogi doono sida hadalka uu dhigay weeye markaas kadibna la ogaan doono xawaaladaha ay baaritaanka ku hayaan oo iyagu isagu uu ku sheegay 4 inay yihiin 4taasna xafiisyadooda ay ku yaalaan Hennepin County iyo Ramsey County ama St. Paul iyo Minneapolis waxa uu sheegay in ay baaritaankaas ay ku bilaabeen hay'adaha kaligood ma aha xawaaladaha bangiyo sidaas oo kale ayaan baaritaan ku haynaa buu yiri oo aan oga shaki qabno in lacagihii la lunsaday la marsaday sidaas la mid ah waxa uu sheegay in hay'adda canshuuraha ee dalkan Mareykanka ee loo yaqaano Internal Revenue Services ama IRS-ta in uu ku amray in ay sameeyaan group ka shaqeyn doona in ay baaritaan ku sameeyaan ama audit gareeyaan ama audit ay ku sameeyaan dadka haysta non-profitka agenciyada aan laga qaadin canshuurta ee tax exemptiga ah inay ku sameeyaan baaritaan si ay u hubiyaan baa la yiri dadka haysta 501c tax exempt status hay'adaha haysta waxa kamid ah masaajida waxa kamid ah community-yada dadka haysta oo si waxay ku non-profit waa faa'iido looma furin dadka loogu adeegaa agenciyada noocaas ah kaniisadaha kamid ah marka dad badan oo waxa jira programyadan haysta iyaga naftooda in ay wax fara ay ku leeyihiin iyo in aysan u isticmaalin lacago si qaldan ku soo galay baaritaano in lagu sameeyo ayuu isagana uu ku amray in IRS-ta ay sameyso task force group iyaga kamid ah oo qaabilsanaan doona inay baaritaan ku sameeyaan dadka haysta 501c-ga gaar ahaan dadka Minnesota jooga mar la weydiiyay in gobolada kalena ay soo gaari doonto ayaa waxa uu sheegay in ay rabaan Minnesota marka hore in ay ka soo bilaabaan investigationada baaritaanada auditka ay ka soo bilaabaan and then gobolada kale ay ku soo socon doonaan waxa kale oo uu sheegay in uu rabo programka hay'adda FinCEN la yiraahdo ee Financial Crimes Enforcement Network oo waadhaweyta la sameeyay oo iyadu hoos tagta hay'adda Treasury-ga ama hay'adda dhaqaalaha dalka Mareykanka in uu ku amray countyga Hennepin County iyo Ramsey County in ay ka soo ururiyaan additional information ama akhbaar dheeraad ah dadka lacagaha dira iyo xawaaladaha sida ay u kala diraan waxa uu cadeeyay in numberka lacagta $3,000 wixii ka badan haddaad diraysid la rabo in la ogaado qofka lacagta qaadanayo informationkiisa
iyo lacagtii meesha aad ka keentay mar dhaweydiye la dhahay lacagaha waxaad diidaysaan in lacagaha dalka Mareykanka laga diro waxa uu sheegay maya lacagaha waa la diri karaa laakiin waxaan u baahanahay originka meesha lacagta ka timi oo ay ka soo gashay hadalkaas ayaa waxa uu noqday wariyaha mar uu hadalka ku celiyay waxa ay noqotay dad badan ay u turjunteen haddaad ceer qaadato lacag ma diri kartid wuxuu sheegay haddii aad ceer qaadato sidaan hadalka u dhageystay oo lacag aad damacdo in aad dirto waxaad qaadataa buu yiri lacag ka fara badan lacagtii lagu talagalay ka badan baad haysataa marka adigoo ceer qaata aad lacag direysaba lacag ka fara badan baad qaadataa marka waa in laga jiraa way noqonaysaa buu yiri lacagtaas oo wax kugu yar oo kugu filan noloshaada oo waxba aadan ka diri karin in lagu siiyo ba arrinkaas ay keeni doontaa buu yiri marka arrinkaas waxa uu sheegay in 10,000 limitka ahaa laga soo degay $3,000 laga dhigay arrinkan markii ay sii weydiiyeen waxa uu sheegay inay ugu talagaleen dadka Mexico ka soo gudbiya daroogada iyo waxyaabaha maandooriyaha ah in ay u isticmaalaan si lacaga fara badan dalka aysan uga saarin laakiin hadda wuxuu sheegay maadaama lacaga fara badan Soomaalida ay ka dirtay gobolka Minnesota sida hadalka isaga uu dhigay weeye oo laga yaabo inay gacmo qaldan gashay same rule baan ku apply garanaynaa buu yiri oo sharciga waa asla marinaynaa 3,000 wixii ka badan waa inaad keentaa banking information kaaga magacaaga qofka qaadanayo sababta aad u diraysid waxaan oo dhan inay ogaadaan ayaan ugu talagalay buu yiri arrinka kale oo uu ku soo daray waxa waaye waxaan sameynaynaa buu yiri software systemkaas oo marka xawaalada ay saa u soo gudbisaba transactionka ama shaqadaas marka iyada ah already ay ka howlgali karaan ciidamada qaabilsan lacagaha xawaaladaha iyo waxyaabaha dambiyada la xiriira dhaqaalaha waxa kale oo uu sheegay in uu rabo in la sameeyay alert system ama si oo lagu ogaado system ogaansho ah oo haddii markaba lacag 4,000 ama $5,000 aad dirto markiiba in dawladda ay ku ogaanayso isla markiiba ay talaabo qaadayaan si lacagtaas aysan dalka uga bixin ama ay red flag haddii ay cabsi ka jirto ama dhaqaalahaas inay joojin karaan inay sameynayaan system alert ah oo ay rabaan inay hay'adaha ay ku xirtaan bay rabaan si ay uga gaarsiiyaan in aysan waxba ay ka hoos bixin waxa kale oo uu sheegay hay'adiisa in ay ku foogan tahay in ay ciidamada federaalka ah kuwa stateka gobolka iyo kuwa localka ama countyga in uu rabo inay isticmaalaan tababarna uu u furaayo inay isticmaalaan financial data ama lacagaha la kala diraayo arrimaha xawaaladaha ku saabsan datada inay isticmaali karaan si ay u soo report gareeyaan ama ay u ogaadaan isla markiiba wax inay activity oo u baahan wax shaki ku jiro haddii ay jirto si wuxuu yiri aan uga hortagno arrimaha fraudka ama khiyaanada lagu sameeyay systemyadii horey lacagaha looga dhacay marka arrinkan isaga ah baaritaano xoog leh ayaan ku wadnaa buu yiri xawaaladaha waa la baaraya bangiyada waa la baaraya dadka 501c ga haysto si gooniya ayaa iyagana baaritaan loogu sameynaya IRS-ta in ay systemka sida loogu talagalay u isticmaalayaan oo canshuur dhaafta loo sameeyay tax exempt statuska loo sameeyay ay ku shaqaysanayaan iyo in kale baa la fiirinayaa buu yiri oo si sax ah ay shaqadooda u haystaan marka ciidamadana waxaa lagu tababarayaa inay waxyaabaha systemka datada financialka si fiican u isticmaalaan oo ay u ogaadaan horaanba si ay wax uga qabtaan arrimaha noocaas marka 4 qodob ayaa ka soo baxday shirkiisii markaan si fiican u yara dhageeyay oo aan u daawaday ninkaas odaga ah alaabahaas ayuu soo saaray waxa hay'adaasna howlahaas ayay soo kala kicisay marka haddii aad nagu cusub tahay don't forget inaad subscribe garaysid haddaa hore noola joogtayna like and share the video waa idinka mahadcelinayaa intan haddaa soo gaartay iska sii share garee insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh